asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba wiilkii yaraa ee halista libaaxa u badheedhay waa sheeka libaaxdeena markan kolka hore kanaalka ku soo dhowaada wasabskaraab saara haddii aad ku cusubtiin oo ay tahay markii kugu horreysay uu ku soo gaadho haddii kalena muuqaalka like saar gameelalkana furo saad u noqoto qofka ugu horreeya ee muuqaalka la soo geliya uu soo gaadho waxa uu yidhi waxaan ahaa wiil yar oo aad u da'yar waxaan ahaa rajay ay hooyadii dhimatay markuu dhashay waxaan ahaa reer miyi aabbihii magaalo iska galay markii hooyadii dhimatay oo ay soo korsadeen adeeradii haddaba waxa uu yidhi wiilkan yari markaan marayay da'aha ilaa 9 jir ayaa waxa lay raaciyey geel waxa layga dhigay dabadhoonka geela amba caawiyaha ninka geela jira oo adeerkay ahaa adeerkayna wuxuu ahaa buu yidhi mid iska canaan badan geeluna waa xoolaha soomaalidu dhaqato kuwa ugu hawsha badan oo waxaa laga yaabaa in sanadkii kolba meel loo xorgeeyo nin adkaysi badan unbaa ka bixi jiray ayaana la ohan jiray berigii hore ee soomaalidu geelii ayaa loo xorgeeyey buuhi meel aad uga fog deegaankii aanu deganayn waxau yidhi aniguna geelii ayaan la coloobay markaan hawshiisii u adkaysan waayey dhulkan amba aanu deganahee geela la geeyey waa meel ka mid a meelihii dhulka soomaalida ugu libaaxa badnaa xilliguna waa qarnigii aynu soo dhaafnay dhexdiisii oo soomaalidii libaaxa ama boqorka kaynta dhacdooyin badani soo kala mareen haddaba waxaan go'aansaday buu yidhi inaan geela ka baxsado ilaa magaaladii aabbahay joogay amba reerkii ama meel aan geelan aan la coloobay lay dirayn wuxuu yidhi xilli casara ayaan sii daayey oon go'aansaday inaan geela ka baxsado wuxuu sii socdaba amba aan sii socdaba waxaan gaadhay buu yidhi xilli fiid ah amba fiid cawlka xilliga la yidhaaha waxaan marayaa buu yidhi meel aad dareemayso cabsi badan oo u eeg dhulkii xawayaanku ku badnaa markaan eega buu dhirta buuraha iyo kaymaha jiqda oo waa cidlo caasira shimbiraha unbaa shibiqda haya buu yidhi shanqadh bila'aadana ma jirto waxaan isidhi kollay halkan libaax amba boqorkii kayntu kama maqnaa libaaxa aad uma aqaano laakiin wariguma seegana oo waxaan ahay buu yidhi 10 jir isku tuntay oo reer miyiya oo adh iyo geelba soo raacay adeeradii iyo awowyadiina weligiiba uga soo sheekayn jireen xeeladaha libaaxa iyo sida wax u cuno iyo halistiisa libaaxa wuxuu yidhi anigoo taa dareensan oo cabsi badanna dareemaya ayaa waxaan ku soo baxay geed dheer oo geedkii laga fuuli jiray libaaxa iyagana awowgay iyo adeerada ay iga sheekayn jireen sida libaaxa looga fulo geedaha laakiin ay adag tahay geedkan sida lagu fuulo oo dusha sare meel yar oo la fadhiistana ku leh waxa aan gacmaha iyo luguhuba imudhxaanba naxdin darteed waan fuulay buuri geedkii waa naxsanahay waxaan garanayaa in boqorkii kayntu isoo raadin karo geedkii aakhirkii waan fuulay buuri dhowr ilbiriqsi markaan geedkii sidaa u fuulay ee aan gaadhay soldhadii u horreysay ayuu bahalkii libaax ahaa oo kaga tuuraya oo fiiftahaya geedkii soo hoostaagay oo maantoo dhanna isoo raadinayay soo hoostaagay geedkii hanjabaad iyo argagixin ayuu igu bilaabay isagoo kolba afka 5 taaka ka dhigaya si aan geedka u naxo oo aan uga soo dhaco oo bahalku dadka uu argagixin jiray si geedka uga soo siibtaan naxdin ayaan qori noqday buu yidhi waxaan ku sigtay mar inaan geedkaba ka soo dhaco oo naxdin darteed ka soo siibtaba laakiin waan iska gaadhay buu yidhi iyadana sheekaan ku hayay waxaan isku xidhay suunkaygii ayaan geedkii isku xidhay buu yidhi haddana waan aamini waayey oo waxaan sidhi bilay go'daaba suunka amba uu go'aa waxaan sitay buu yidhi go' yar oo aan isagana ugu talagalay inaan dhaxamaha ka hoodo isagiina waan isku xidhay sida dumarku carruurta u xambaaraan ayaan geedkii isugu xambaariyey buu yidhi wiilkan yar ee xadaariga ahi weligiiba kolba intuu tago libaaxu ha soo galgasho amba ha soo gabaagurdeeyo intuu 1 daqiiqo iga maqnaado kolba ha soo galgasho isagoo qaylinaya anigu nin u juuqaya maahi waxaan ahay nin geedka ku xidhan buu yidhi habeenkii oo dhan ayuu hoos joogay wuxuu yidhi garan maayo waxaan sheeko ku maqli jiray in libaaxu iska samro markuu waxoogaa ku hoos joogo laakiin waxaan u malay inuu kani aad u gaajaysnaa waaba iska kii hoos seexday buu yidhi ilaa maalintii ayuu iga hoos tegi waayey waayo waxaan sheeko ku hayay in libaaxu iskaga tago dadka marka uu habeen hoos joogo laakiin igama tegin kani waxa uu hoos joogay laba habeen amba maalin iyo habeen ayuu ilaalinayay si aan geedkan uga soo degon ayuu naawilayay caano yaroo aan sitay maalintii hore ee aan soo socdayba waa iska dhammaadeen labadan habeen waxba maan cunin waxaan ahay 10 jir aad u gaajoonaya amba gaajo bas maalintii labaad anoo yaaban oo iga hoos tegi waayey oo yaabanoo imka seed yeeshaale bahalkiina uu hoos taagan yahay ayaabuu bahalkii
idanka ilaahay iskaga kay dhaqaaqay buu yidhi waxoogaa markuu iga sii maqnaa ayaan ana geedkii ka soo degay kolka aan waxoogaa iga maqnaa oo uu sidhi iminka malaha u tegey ayaan ka soo degay buu yidhi geedkii iyadana waxaan ku hayay sheeko buu yidhi marka uu baalku ha dhaqaaqo oo in badan kaa maqnaado uu si samir la u dhaqaaqo eed si eegto adiguna wuxuu yidhi waa inaad ka degtaa geedka iyana waxaan ku hayay sheeko uu awoowey iga sheekayn jiray iyo adeeraday wuxuu yidhi waxoogaa markuu iga sii maqnaa ayaan geedkii ka soo degay oon cagihiiba ayaaba dhulka ii qaban waaya buu yidhi waayo geedkiiba waan iska soo tuuray markaan ka soo degi kari waayey cagahaygii ayaa laabnaa buu yidhi 2 cisho oo daal ayaan ka soo degi kari waayey geedkii orod ayaan isa sii daayay buu yidhi markaan cagihii yar kala baxay cagihii yar jimicsi sameeyey saan cagaha u kala bixiyo ilaa naf baqanaysaa ma xanuunsatee waxaan maalintii oo dhan sii ordayay buu yidhi amaan sii ordaba waxaan ku soo baxay adhi meel daaqaya waana wixii iigu horreeyey ee aan ku farxa buu yidhi markaan arkay adhi meel daaqaya oo islaan la joogto hooyadii ayaa iga damqatay buu yidhi sida aan u ilgo'sanahay iyo gaajada iga muuqata ayay markiiba dareentay ile waa hooye islaantii ayaa i waraysatay iyadoo xaggii reerka ii kaxaysay caana iyo biyana way siisay buu yidhi oo nafta ayaa igu soo noqotay maadaama gaajo fanash ahaa islaantii waa i waraysatay waana i tooyatay reemiyigu inta badan waa is yaqaaneen way i garatay buu yidhi magaaladii iyo meeshii aan ku socdayna waa ii tilmaantay iyadoo i tiri halkan mar magaaladii aan ku socdayna markaa igama fogeyn buu yidhi oo waxa i soo qaaday uun caruurnimo iyo anigoon garanayn dhulka oo maalintii oo dhan soo orday oo dhan qalmay laakiin aakhirkii magaaladii waan helay buu yidhi aabbahayna waan u tegey waxayna ahayd sheeko ka mid a sheekooyinkiinii hore ee soomaalida iyo libaaxa dhex maray ee ahaa goormay kugu darnayd ee libaax ama boqorka kaynta aafooda istartaan waxayna ahayd mid ka mid a nin soomaaliya iyo libaax dhacda soo kala dhex martay si aad ula socoto sheekooyinka noocana iyo qaar kaleba fadlan ku soo biir kanaalkan haddii ay tahay markii kugu horreysay ku soo gaadho sabskaraab saar oo ku soo biir dhammaantiin waad mahadsantihiin